بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة waxaan isku dayayaa war kooban inaan ka idhaahdo ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala kitaabkan aynu masaajidda ku quruxsanno ee meel kasta yaalla saddex qodob oo keliya baan tilmaami doonaa markaa kitaabkani ugu horreyn waa alle kalaamkiisii khalqiga ama kownka ama universe-kan aynu joogno dhammaantii waa ilaahay makhluuqaadkiisii waa ficilkiisii kitaabkanina waa ilaahay hadalkiisii subxaanahu wa tacaala shayga labaadan wax ka odhan doonana waxa weeyaan mar labaad kitaabkani waa mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo siiyey waa waxa konfisgaraynaya ama caddaynaya duruuf garaynaya inuu nebi maxamed nebi yahay xagga alle ka yimi oo rasuul ah oo diin wada halka ambiyada kale mucjizaad xisiya inta badan la siin jiray nebigu mucjizaad badan waa la siiyey laakiin kanaa ah ka rasmiga ah waa shayga saddexaad aan rabo inaan tilmaamo waxa weeyaan madmuunka kale uu kitaabkani waxa uu sido waa manhaju xayaa waa bini aadamku siduu u noolaan lahaa ama waa nolosha siduu u isticmaali lahaa cidda wax samaysay dunida aynu naqaano mashiin cusub gaadhi cusub wax cusub marka la keeno katalog baa la socda kuu sheegaya how to use it marka hore sidaad waxaan u xidhxidhi lahayd marka dambe saad u isticmaali lahayd ku direct garaynaya oo gaadh garaynaya ilaahay isagaa ku abuuray kanna waa katalogii lagu soo raaciye loogu talagalay nolosha tan saad u isticmaali lahayd maadaama waqtigu kooban yahay sheekh saciidna aan qayb u reebi doono waxaan isku dayayaa saddexdaa qodob oo kooban inaan soo koobo ka koowaad waa ilaahay kalaamkiisii subxaanahu wa tacaala ilaaha cirka iyo dhulka iyo dunida iyo wax walba abuuray ilaaha khabiirka ee caliimka dee hadda lagu yidhaahdo nin professor oo khabiir waxaa ku abaa hadlaya waxaa laga yaabaa dadka waxaa danaynaya oo dhamme inay yidhaahdaan ninkii dunida looga dambeeya maanta lecture jeedinayo loo soo xaadiro bimujarad waa insaan waxoogaa bartay maxaad u malaynaysa haddii lagu yidhaha rabu samaawaati walardi baa hadlaya oo adiga kula hadlaya innagu markaynu qur-aanka akhriyayno dad badani waxaa laga yaabaa inay akhriyaan as a history book in laga waramo abubakar iyo abijahl iyo niman beri noola ayaa hebel baa waxaa sameeya ayadamaa soo degtay marka waxaynu uga waramaynaa qur-aan taariikhi ah laakiin ma aha waa ilaahay kalaamkiisii oo each and every person in this world gaar ula hadlaya qof waloo dunida joogaba toos buu ugu socdaa gaar buu ugu socdaa sida awgeed weynadiisa la weyneynayo ilaahay qur-aankan wuxuu ku soo dejiyey khayru buqcatin fi lard maka qaaru xiraa buu ku bilaabmay dhulka meeshii ugu fadli badnayd waxaa la soo dejiyey bilaha bisha ugu fadli badan leh shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan bisha dhexdeeda haddana waxaa laga soo dejiyey habeenka ugu fadli badan leh 360 maalmood la tiriyo habeenka u fadli badan leh inna anzalnaahu fi laylati alqadr wama adraka ma laylatu alqadr laylatu alqadr khayru min alfi shahr waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan sida loo weyneynay waxaa lagu soo dejiyey rasuulkii rususha ugu fadli badnaa oo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu soo dejiyey ummaddii umamka ugu khayr badnayd kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar idan waxaasoo dhamme waxa ay tilmaamayaan weyni ilaahay weyneynayo subxaanahu wa tacaala hadalkiisa si ay dadku ugu fiirsadaan oo ay si gaara ugu fahmaan idan waxaan leenahay kelmadda koowaad oo ku soo koobaynaa
قرآن كان أدركيسا وإلهي كلام كيسي إلهي كو أبوري الدنيا دا أبوري خلقي قرنا نسقوله آخرة أبوري جنية النار بله عالم كي خبير كي حكيم كا علم بدن خبرات بدن أقوام بدن يعلم السر وأخفى وهو البؤك وحبا أنا كقرصوني باطن كي ظاهر كي غيب كي شهادة سومي تهي عالم الغيب والشهادة وحم مغضية وحم مقنبؤك لها هذا الكيسي ويان باليري ومركا كوات سيدا وقيد با إلهي سبحانه وتعالى وحين أقول الماما حتى ومضي اللي سودك إيادا ومضي وفض بدن له إيادا نحدى إيادا مركا اللي آغانا كوة ساقا حباسا ما وصفض بدن باليري حديثك بخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدنكو خير بدن كقرآن كبرتي يا بري انت بدن ضدك حديثك مركي فسريا وحيو قاطانون الفاديس وفق القرآن كان انتو قايبا يساقون ضدك السيب بري لكن تعلم القرآن وكبل عليه وقفك القرآن كبرتي فهمي أحكام كيسة حكم كيسة تاريخ كيسة وحقو قرآن فهمي ايه السيداء معناه قبل ذلك ندى ريدي سي آخري كريو أما كورك هي أما كتابك آخرين هي ذكر السي بريا يعني الرسالة دا إلهي كلام كيساسي عدة انت فهمته هدنا بلشدك لأسي قد بسه أي أيدنكو خير بدن با ونبغ تلمامي عليه الصلاة والسلام سيدا قرآن الله قيمين يدرادد الفضل كيسا وحكو تصينيا نبغ عليه الصلاة والسلام وحولي إمام لمدينة إنك إمامك إنه هرتاغني وقف إنه لنا إلهي إنه الله هذا أننا آمين تام كهذا بحيننا يا الله إنه بري أدعو واجه إلهي سبحانه وتعالى يا القوم أقرأهم لكتاب الله ابن ربي أي النبي عليه الصلاة والسلام يا القوم ذاك واحد تكينيا نينك وأخرس بدن وفهم بدن وأقوم بدن إلهي كتابيس عند الصحابة وقت عندما واحد صابحي إن فهم كي قرآن كي كلفوا قادان وضد بدن وقيف سلا عركو لكن أن دراسينين ويسكب دينين يبرتان محي قرآن كمعنيسة لكن عهد الصحابة أقرأهم كان أفقههم كوان قرآن كوغو أخرس كبدن له يجا هانا كوا وفقي علم بدن ويوم أنك إلهي هذا الكيس السيدا إيه فهمي أنتو إلهي هذا الكيس قيبي بشك هيا هدنا معنيه سفهم سلي هو كاسا وعلم بدن ضدك سأوجد أي النبي وحده عليه الصلاة والسلام يا القوم أقرأهم لكتاب الله حديث مسلم ضدك وحا تكين ينك القرآن كهو أخرس بدل بل النبي عليه الصلاة والسلام مالنتي وحده ضدك بدن مسلمين تبنتين أدو مركي ضدك الحبالي وحد عدين حبالها قاركود لبا صدح لو قرده حبال كليه لبا قف لو قرده أما صدح قف لو قرده حتى حباشة وحو النبي عليه الصلاة والسلام وقدموا أكثرهم قرآنا سوك القرآن بدين وكله الرئيسية القرآن كبدن له الله الرئيسية كقرآن كيرنا محي سكن ما كان نوضع قفك الله بعد حباشة اللي قرده وحصلنا وحين نقول المامنا إنه إن يركت المامنا قرآن كيف فضل سمك هرين وينام موضوع نصوص بدن أو قرآن حديث وقصة أرتي لكن كلمة ديدكم الصعطة فضلها وحن ربعونا تلمامه إلهي كتاب كيس وينين توب هيا إنه أنت بدن وينين تيسون وينين مال حد جنا بورك كيل علينا لا يدهضر لك حد جنا صح أنتوا بوا صح توراة مركي ساقطين يهودي ومسألة النبي وخبرني توراة مركي اللودي بيوحي كان وحلادي وبركين بيو كاننا وطالات بشكل صار توراة محرفة هي مركز جديدين ودول كدفع إذا إلهي كتاب في سين دول كلا دقا ما هو إلا شرفه لوينية لكن تنو دم بيكي إنجاجنت ووينين أن وينين تي للربي لا صعني وشيء قال بعض وحلنا القرآن هو معجزة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي جريتان كيسة وعصر قد واحد مغلي صادتكم مرمية إلهي جريتان كيسة يا أنبياء جريتان كودي يا نبي محمد نبي نمجسي وحورنا إساقا عبدينيا لو ما بهنا فلسفة كبحسن يا قوم كلو كبحسن
diin wixii u ah isaga u marjaca quraanka ka waramaya ilaahay subhanahu wa ta'ala adillada cadaynaysa wujuudkiisa tirijaankiisa quraanka ka waramaya adillada cadaynaysa aakhiro janno iyo naar quraanka ka waramaya adillada cadaynaysa rususha iyo jiritaankooda waliba wuxuu cadaynaya si logic ah markaan leeyahay quraanka cadaynaya nabi maxamed lama oran alayhi salatu wasalaam gaaladii waqtigiisa la joogtay lama oranin falsafo kale intaad u akhrido markay ku rumeeyaan quraanka u sheeg lama oranin ee waxa la lahaa qul markay shubha keenaan ba ilaahay ba ka jawaabay sida qudhe sida dheh idan quraanku shubahaadka la hayo oo dhan inaad adigu fahmi weydo waa dhici kartaa saad wala soo bixi lahayd laakiin waxa la leeyahay waxa shubha bini aadam hayo atawaasaw bihi ba ilaahay bini aadam intuu soo jiray intan shubahaadkana way soo jireen isaga ka wada jawaabaya isaga ka jawaabaya saawgeed ba ilaahay wuxuu leeyahay awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi kuwii mucjisooyin wax doondooday oo miyaanay ku filan ba ilaahay leeyahay inuu kitaabku u soo dejiyo korkooda lagu akhrinayo walidalik haddaad rabto cid gaala inaad qanciso waxba isku dayin adigu inaad logic iskaaga isticmaasho quraankaasi wuxuu sheegaya u sheeg hadduu afka garanaya u dhiib haddii kale kitaab translated oo wax ka sharxaya u dhiib ilaahay isaga adilladiisa cadaysanaya rusushiisa diintiisa adillo uma baahna bini aadam kan bay ku taallaa waa kitaabka quraan wuxuu la hadlayaa min layman ilaa keena ugu khabiirsana professorka waa iskaga mid ilaahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa al-latiif al-khabiir ilaahay wuxuu ina leeyahay miyaanu alla garanaynin ciduu abuuray isagoo al-latiif al-khabiir ilaahay waa ogyahay bini aadamku wuxuu u baahan yahay u garanaya qaabka loola hadlayo caqligoodu la hadlaya qalbigoodu la hadlaya maankoodu la hadlaya isaga inaf wuxuu u baahan yahay cidda diin ugu yeedhayso inaad quraankan u dhiibto haddii aanu luqadiisa garanayaad wax uga sheegto haddaad translation helayso inaad siiso tiraahdo akhri wixii mid madow ka gala haddaad u sharxi karta aad u sharaxdo saawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay quraankani mucjisayn iyo waxa ugu filan low kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira baa ilaahay cidaan alla ahayn hadduu ka iman lahaa qur'aanka kani isbaraanbarin badan iyo isburin badan iyo iska horimaad badan baa lagu arki lahaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala kitaabka qur'aanka ah ninka saynisyahanka wuu qancinaya oo ninka dhaqaale ka warramaya wuu qancinaya oo ninka siyaasiga wuu qancinaya oo kullu fan kullama aqoontaadu sii badataba fahamkaadu yeelanayso baa sii badanaya kullama aqoontaada kale nolosha aad ka taqaanaa ay badato fanigay doontaa ku saabsanaato haddaad quraanka akhrido usuusheedaad arki doontaa saawgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa oo dadka miyaanu ku filayn kitaabkii aanu soo dejiyey hadduu ahaan lahaa kitaab cid kale maanta dunidu ninka fanni ku takhasusa ee buug fiican ka qora oo la bumbuuniya waxa la yiraahdaa professor hebel oo kitaabkiisa siyaasadda waxa kaga warramaya ama dhaqaale waxa kaga warramaya ama waxa kaga warramaya waa buug ugu fiican waxaad qiyaastaa kitaab uu la yimi rasuul ummiya qofaan waxna qorin waxna akhrin oo waxa bini aadamku u baahay oo dhan ka warramaya mucjizo ka weyn baa jirta kitaabu sito haddii nin wax aqoonin wax soo qorqoro waxaad odhan lahayd waxbuu soo bartay oo waxbuu garanaya laakiin kitaab aakhira ka warramaya oo adduun ka warramaya oo cirka ka warramaya oo ilmaha caloosha ku jira iyo atwaartu mara ka warramaya oo wax kasta ka warramaya oo haddana cidda sidata ay tahay cidaan waxna qorin waxna akhri karin aduu ma u malaynaysaa qof aan ha lagaba qoro qof aan waxna qorin waxna akhrin inuu kitaab qori karo se kitaabku qoraa siduu ekaan lahaa baad u malaynaysaa haddaad nin reer miyiga u yeedho tiraahdo kitaab baan kaa qoraya iyo bal sheeg muxuu ka warrami lahaa baad u malaynaysaa kitaab noloshoo dhan maamulaya inuu yahay taasi waxay caddaynaysaa nimankii gaaleedee nebiga cahdigiisa noolaa iyo kuwa maanta nooliba markay u taag waayaan waxay isku dayaan inay ku noorgareeyaan aan la akhrinin laga fogaado rag waaweyn oo culamaa waxay ku tijaabeen ama professor rayn markay
أركان إن قضية قعد هين إسك فوزيها كل لبجان وقت سنة ولا أنا محير هذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون مركي حوك لو أيه محير هذا وهذا جاي سنينا هذا جاي ستو خدوف سنة ياي جس بقى كحرو وهذا أركتان سقوا آخرنا يا والغوا فيه كبوة يا لسفهم لعلكم تغلبون بينها وحلقيها بين الحق بضطان إذن شيء قال بعد تلمام يا مركا وحياي كتابك قرآن كاي مركا عقيدة إلهي دينتا ملائكتا رسوشا تاريخ دي دتك هوري وحا مركا لغا ورمي الجنة نارتا سيقا دليل غفلا آيات الأنفس والآفاق بقى ورمي أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ورانكو حينات المامية ورعركا إيا دولكا إيا السمدان إيا وحيا أبو ري هذا سيستم أركتو وح نظام له سيستم له ديساين وحكم موضوع there should be a designer صدفة يكوس محل إذا by chance coincidence ما سميان نظام كما صابحه that's why مثلا إنك ساينسيها كاي محو حبارة عقيدة رميستانية دوني السيستماتيك تاي وهي واحد سيستماتيك وقولك ريسيرش وسمين كرتا هذاك رميستان تاي بيهم مرنا هنا إلى 2 ديجري كوبا الجروبيان مرنا بقول كوبا الجروبيان وإسكا باي تشانس تاي علمي بما صورته قالي لكن علمي بحثي واحد كهر رأي بين هذان عقيدة ده سؤال كو قناعدي دوني السيستماتيك تاي markaasay suurtagal tahay inaad tiraahdo systemkan sidoo shaqeynayo wax ka ogaado science oo dhan waa system ka shaqeynaya dunida ka jira inaad isku daydo inaad wax ka ogaato hadhowna aad isku daydo inaad taqliidiso develop garayso aadna bal inaad sidii oo kale wax u samaysan kartid aad isticmaasho haddaana taa ku qanacsanayn marka hore ku qanacsantay wuxuu inuu fawdo yahay no science atool ma jirin ilaahay wuxuu ina leeyahay khalqiga allah abuuray haddana soo celinaya إله عركن يدلك بيدك أرزاقيا إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دليل كني بروف كي مكان هذا وحكى للربع سنتين هدو ترى وحكى له أكو سوكو يقضب كلابات مركزي قرآنكو استجد دليل سوف لنا إن فهموا بوبهين ولذلك إلهي النبي جوح كويري وجاهدهم به جهادا كبيرا استجد قلت دقال قلب إلهي قرآنك كل دجال قل هذا باهنت هاي واحد دودي كتاجنت هاي واحد مران كتشرو واحد لقى حد يدين كصابسن وما باهند وحكلا كتابك القرآن جوابتي سيكو قرآن هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلقولي وجاهدهم به جهادا كبيرا السجق دجال قل كسنا وقضى كلابات اوكي واحد بسم الله دعاء بانهرت I want to ask a question. How many of you do not understand Somali? I want to see hands. I didn't say how many of you understand Sheikh Somali. Sheikh Somali nobody understands, but how many actually have no idea what Somali is? Only. The young guys don't count. So only one person. I'll try my best to explain what the Sheikh was saying and summarize, try to summarize as much as possible because there was a lot of information and I don't think I can, I could not retain all or write it down them all. So I will just go as a summary of what the Sheikh said. The Sheikh Hafidahullah, he said at the beginning, I will try to give a statement concerning the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And this book that we have on the masajid that will beautify shelves with it.
He said, first of all, we have to understand this book is Kalamullah. It is indeed the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, we have to understand, the Shaykh, this is the point that he wanted to talk to you about. First of all, understand this is the book of Allah. This is the Kalamullah. This is the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, this book is the miracle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that Allah subhanahu wa ta'ala aided him with. He say the other Anbiya and the Rusul were also aided with a different type of miracles, but this particular miracle was given to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yes, also the Messenger of Allah had other miracles like the miracles of other prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. But for Rasulullah in this particular, his miracle was the Quran itself, the words of Allah subhanahu wa ta'ala. He said this book, which is the third point that he's going to talk about, this book is actually manual of your life. This book is your manual. The Shaykh, he stated under that point, and he said everything that is new, every gadget, every mechanical thing, when the maker makes it, it comes with the annual. And since Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created us, He sent a manual for all mankind, which is the book of Allah. He's the one who created us, and therefore He knows us the best. He said the first point was, this is a Kalamullah, the book of Allah. The Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, He is expert in humanity. He is expert what we need. And Allah subhanahu wa ta'ala, when He is talking to us through the book, He is talking to us. We are listening to the words of Allah subhanahu wa ta'ala, who knows us better than anyone else. This book is a book that addresses individuals. When the Quran is recited by individual, the message of the Quran, it is indeed for you, for that particular person. He said this book, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, was revealed in the most honorable, the most sacred place on the earth, which is the city of Mecca. This book was revealed on the most important, most sacred month, which is the month of Ramadan. This book was revealed in the most sacred and the most honorable night, which is the night of Al-Qadr. And this book was revealed on the most important person, which was the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the best of all messengers and the prophets of Allah. Yet this book was also revealed onto the most important ummah that Allah has ever created subhanahu wa ta'ala. Therefore, we must understand this is the importance of this book and the place of this book in our life, and how should we be treated bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. He said also, Allah honor the individual who have encouraged this book when He stated in the Sunnah, according to the Messenger of Allah, when He said, the best of you are those who learn the Quran and teach it. He said, I want to touch a bit about the virtues of the Quran itself. He says the Quran is so important that during the Salah, when we put someone forth and we ask him to lead the Salah, that person is reciting the words of Allah as though that person is an ambassador of the Muslimin, who is talking on behalf of the Muslimin, asking Allah subhanahu wa ta'ala to give them the best of both worlds. Therefore, Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave a special status to the person who have the most Quran, and he said, let those who have the most Quran lead you in the prayer. You see, at the time of the Prophet, at the time of the companion of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, they understood that. They understood the importance of understanding the Quran, reciting the Quran, and that's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was always keen to, or they taught the companions to make sure the one who leads them is the one who has the most Quran.
He said, I don't want to talk about the virtues of the Quran because that is a subject for other time. But the book of Allah, it is indeed the words of Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala revealed this book for us. He said the second point that the Shaykh said, the second point that I want to address is that the Quran, and keep in mind, I know those of you who speak Somali, you're already getting bored because I'm repeating, a glimpse of what the Shaykh said, and I know you had not only the gist, but the core of what the Shaykh said, but I'm reflecting on reading or repeating what the Shaykh already said. He said the second point was the point of this book is indeed a miracle. Miracle to prove that this man, the messenger of Allah, was indeed the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. This book was miracle that spoke about the life hereafter. Spoke about death, life and death. Spoke about life in the grave. It talked about life in the Qiyamah, or what happens after death, and so on. He said, this book is a cure also for any doubts and confusion. And I'm skipping a lot of what the Shaykh said, so I can give the Shaykh more time, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. He said, if you want to convince someone about the deen of Allah, all you need to do is let that person read or understand the words of Allah, and without a shadow of a doubt, the person would be able to relate and understand the message of Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to convince someone, give that person the book of Allah and let him and leave him understand, analyze and reflect the book of Allah subhanahu wa ta'ala. The book of Allah is from Allah, and Allah knows how to talk to the individuals, and He knows the need of these people. Therefore the book would definitely be able to explain itself better than anyone else would try to explain. Some of the miracles of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, He said, Allah said, if this book was from someone else, indeed they would have found a lot of contradictions. If this book was from someone else, this book they would have found a lot of contradiction in it. Indeed, the book is from Allah subhanahu wa ta'ala. Again, this book is enough to convince everyone who reads with open mind and try to understand. He said this book talks about the universe, talks about the creation of Allah, the perfection of Allah subhanahu wa ta'ala, and how this galaxy orbits, and how perfect that they work together, move together, and how they're well designed. And the one who designed is Allah subhanahu wa ta'ala. And he said if today someone authors a book talking about something, people give and pay a lot of attention to it. But imagine when Allah subhanahu wa ta'ala is talking about His creation, who has the most experience in all things. He said the Quran indeed is a clear evidence, clear guidance, and we need to understand it that way, and the message is for us. Now. Bismillah. qodobka saddexaad ee sinaan soo koobaya waxa weeyaan inaynu garanno kitaabkani inuu yahay ilaahay kalaamkiisii, garanno inuu yahay daliilkii ama mucjisadii ama burhaankii ama caddayntii, bayinadii diintan xaqnimadeeda iyo midnimadeeda tilmaamaysay. waxay isweydiin laha muxuu ka hadlayaa markaa intaa kadib muxuu ka hadlayaa kitaabkani wuxuu ka hadlayaaba in layni muxtawaagiisu waa manhaju xayaa. waxa uu tilmaamayaa qofka bini aadamkee dunidan jooga siduu u noolaan lahaa ayan kaana mustawaaka alcilmiy, meeshaa doonto heerkaaga aqooneed, garaadeed, waxbarasheed ha joogo, laakiin waa guidance-kaagii tilmaamayay noloshan sidaad ugu noolaan lahayd. si kale haddaan u idhaahdo waxa weeyaan waa jadwalkii yowmiga ahaa ee maalintaada. waxa laga yaabaa inaad buuggaaga waxyar ku qorqorto, maanta maxaa shaqadii taalla, maxaan qabanayaa. noloshaada oo dhan shaqadii kuu taallay buu tilmaamaya, waxaad qaban lahayd, sidaad u noolaan lahayd. wuxuu kaaga jawaabayaa baahi kastoo aad qabto. sida awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wanazalnaa calayka tibyaanan likulli shay
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إلهي القرآن كما كنت سفيني وحكت المام يا نبي وحن كنت سودة جني كتاب تبيانا لكل شيء تحتاج إليه عدينا يوحك استأدوا باهنتين نلاش وحيدة هذا ما الله قيبوت قيب إلهي وحا عقلي ينوسي إنه بادنه وهورو مرنه أفعاشنا إلهي خلقي جيسان سينو باد لهي all sciences wuxuu sameeyaa waa istikshaaf waa wax jiray ayaad siduu u shaqaynaya baadi doonaysaa aqoonta bini aadamku waa inta aqoonta bini aadamku wax cusub ma samayso waxaan jirin ma keento walow atamna ha noqdee laakiin waxay raadisaa wax jiraa siduu u shaqaynayaa markaad fahamto siduu u shaqaynayaa la isweydiiyaa markaa sidee looga faa'iidaysanayaa yani science oo dhami waxay dhahdaan waa space and time unbuu yareeyaa waktigaa waxaa lagu qabanayay see loo yarayn lahaa gaadhi dayuuro tareen waxaanaynu fuulaynoo dhan mishiin wax sameeya warshad wax soo saarta waxa kan waa wixii manualka loo qaban lahaa wakti dheer qaadan lahaa see timekiisa loo yareeyaa waxa labaad uu ka fakerana waxa weeyaan spacekiisa see loo yareeyaa meesha uu qaadanayo marka hore mashiinadu markay soo baxaan marka hore intaasay wada laaleegyihiin xajmi ballaaran wuu sii yaraadaa hadhow baa la idhaha wax yaroo intan leeg baa qabanaya shaqa intaasiya kuwan imanka dee computerka inoogu logical gateska computerku maxay taiwan baa hadda u horeysa 3 nanometer bay marinayaan 3 nanometer inuu processorku ahaado soo duuduub kuwa caqliga loogu talagalay waxa uu quraanku kugu hadeynaya kuwa wixii khuraafaat iyo waxaan jirina inaad ka tagto si aad really u waajahdo oo shacwada iyo falfal iyo alraafays iyo waxaas oo dhan bini aadamku adeegsaday war wax soo khuraafa la yidhi xagga iska dhiga wax baadha waxa aan kuwa ahayn ee bini aadamka dhaqankiisa wixii ku saabsan bini aadamka dhaqankiisa wax ku saabsan waa maxay waa hadduu dhaqaale yahay hadduu saynis yahay hadduu taariikh yahay hadduu caqiide yahay qofka bini aadamka ayaa siduu u fakerayo iyo siduu wax u qabanayo wixii ku saabsan usuusheeda ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankani wuxuu idinku hanuuninayaa ta u toosnaan badan even though xataa hadday 2 dariiqoo meesha loo maraa jira pointkaasi aad u gaadho hadday 10 dariiqoo la maraa jiraan ka ugu dhow waayo ilaahay bini aadamka wuu karaamayey lama rabo inuu bini aadamku la noqdo jiirka wax lagu tijaabiyo mabaadi'da dunida waxay bini aadam ka dhigtay jiir wax lagu tijaabiyo 70 sano mabda lagu wadayo hadhow baa la odhanayaa wuu fashilay waxba kama jiraan way la bedelaa tala shuuciyad 70 years baa dad bir iyo xadiid lagu maamulayo هذا اللي يدو حوكم الشلال أنا سكتوا وحلا من الرأس مالية والقوة وذي لكن هذا اللي تاجلاقي ماشي لا قبل حلا اسكو صوت ضوضوب بني آدم كتجارات كانوا بني آدم كقوة ذا إلهي وحلي بني آدم كتجارات كداية أنا هموني طريقة وصح سنة المامي هذه هو حلقة بين المرته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وارددوا إلهي لي قد جاءتكم موعظة وانا حق يدين كتمي الله هي الشفاء لما في الصدور وحكا ستوب بنا آدم كورور قليا وهي لقاقع عاف مالي وحكا ستوب جهل كان وحكا ستوب ورور قليا نظام كستوب وكشك قبوه caafimaadkiisa kabuu ku jiraa baa ilaahay leeyahay hanuunku isagu ku jiraa idan kitaabka quraani waa kitaabka caqiida laga qaato waxaad rumayn lahayd iyo tasawuraadkaaga waa kitaab shareeco laga qaato qaanuun basiska nololeed there is no law in this world isku soo dar xataa kuwan yaalla
diin bay ku salaysan yihiin ama diin qaldan ha noqoto ama diin saxan ha noqoto ama diin qaldan ha noqoto ama diin saxan ha noqoto laakiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wixii ugu qumanaa ee qaanuunaan idin soo dejinaya shareecada qaanuunkeedu bini aadamnimaday ku salaysantay waa isbedbedela saa awgeed maaha maadaama asalka bini aadamku isbedelaynin ama qaanuunka bini aadamku shalayna xalaal buu noqonaya maantana xaraam buu noqonaya saa dambena waajib buu noqonaya maalan iminka dunida xuquuqul bini aadam waxa la yidhahda inta la waday oo xadkeedii la dhaafiyey shalay wax dembi ahaa bal DSM buugga ku qoraa DSM buugga waa buuggan yare dhakhaatiirtan psychiatriga iyo nervayo waxaan ku shaqalay buugga yare haag buuggooda ay wax ka baadhaan xanuunada ku qoraa ee ay u arkayeen mental disorderska inay ka mid tahay la daweeyo 1972 wixii ka horreeyay xanuun la daweeyaa buu ahaa iminkana waa xuquuq bini aadam u kala fiirso intiisu jiraan homosexuality 1972 wixii ka horreeyey DSM bookska wuxuu ku qoraa inuu yahay xanuun mental disorder oo ah in la daweeyo oo way loo mara leh iminkana wuxuu u soo guuray maxay xalaal 1919 kii maraykanku wuxuu qaatay khamradu inay xaaraan tahay waddanko dhanna waa laga mamnuucay 15 sano ama 14 sannadood buu saaha 1933 iminkana waa xalaal ma cilmi cusub baa ka soo koray maya waa loo taag waayo idan humanitygu isma bedelo bini aadamnimadu isma bedesho therefore mar haddaan bini aadamnimadu isbedelaynin qawaaniinta asalka ee bini aadamka noloshiisa ku saabsane xaaraantiisa iyo xalaashiisa ku saabsani waa inaan isbedelin inay wax jira noqotaa siiba cusrigan dambe uu bini aadamku xad gaadhay idan caqiida kitaabkan bay ku taallaa shareeca isagay ku taallaa akhlaaq ethics iyo morals bini aadamku waxa uu ku dhaqmo ee dhaqan iyo akhlaaqa usuushiisa qur-aanka ka warramaya wuxuu ka warramayaa taariikhdii bini aadamkoo kooban bini aadam qur-aanku wuxuu ka warramaya maalan nebiyo iyo rusul iyo dad wanaagsan iyo saalixiina wuxuu kaloo ka warramayaa duqaad iyo faajiriin iyo dictatorship iyo habaarqabayaal dunida soo maray wuxuu ka warramayaa taariikhdii bini aadamku aadam laga soo bilaabiyo ibliis wixii dhex maray ilaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wixii dhex maray oo taariikhuu si concise kuu siinaya wuxuu kuu siinayaa halkee lagu jabay halkeese lagu guulaystay and that's the point taariikhda waxa laga rabaa waa intaa waa inaad ogaato maxaa lagu jabaa si aad berri isaga ilaaliso waa inaad ogaato maxaa lagu guulaystaa si aad u sii isticmaali karto idan taariikhdii bini aadamka kooban buu ku siinaya wuxuu kuu addarasayaa mustaqbalka soo socdaiyo waxa dhici doona hadday tahay geerida dabadeed iyo xabaashi marka lagu jiro iyo aakhiro iyo janno iyo naar iyo wax ka dambeeyo tilmaamaya wuxuu qur-aanku ka warramayaa cadaalad dhaqaale siyaasad culuum ijtimaac bal ishaaraat kowniya fi lanfusi walaafaaq aayaadka qur'aani kownka ka warramaya kun aayadood way ka badan yihin bay yidhaha waxay dhahdaan aayaadka axkaamta ka warramaya axkaamtan sharciga waxaa sameeya waxaa samaynin aayaad ka warramaya waxaa ka badan aayaadka universka ka warramaya intaynu daraasayn walunduruu maada fi samaawaati walardi baa ilahay leeyahy war bal cirka iyo dhulkan u fiirsado eega intaynu u fiirsan intaynu cilmi baadhi samaynay intaynu daraasayn ilahay baa ina amraya inaynu eegno oo u fiirsanno qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa bada'a alkhalq dhulka socda oo taariikhda dhulka ka helaysaan geologiska iyo waxan maxay sameeyaan layerska dhulka iyo waxan baa la baadhaa inta asaa la yidhaha waktigaas saasuu ahaan jiray waktigan caynkan buu ahaan jiray geedkan intanoo sanuu jiray wax ilahay dhulka socda buu leeyahy oo eega aahaartii bini aadamka idan waxaynu u baahanay oo dhan buu ka warramaya waxaan odhan karnaa bitacbiir aakhar waa akbar mawsuuca cala aliطlaaqi fi hada alkown waa mawsuuca encyclopedia ugu weyn ee nolosha oo dhan usuusheeda koobay muxuu ku koobay ma isagoo iska hadal tiraa maya ilaahay wuxuu leeyahay anzalahu aladii yaclamu asira fi الsamaawaati walard waxaa soo dejiyey ilaaha sirta ku qarsoon cir iyo dhulba og
إله سبحانه وتعالى سرت عرئي يقول بقوق رسول معي أقبى سودتشي إذا ما حلين كتابك هو منهج حياة حينو بهنا يهداد قفطة هاي يهداد قيس هاي يهداد قرن هاي بين تسقى والنقطة كم حكو شيء حكو فرية هنا هو عقل عين لقى بركة يستوى بين نقاطنا هل كان أخري يوك بركة يستوى تنسكد هذا لم يتهاي قف هرادا وهذا نبي حبار سنكور دي بيلغو هذا ناد هرادا طول هذا هرادا بختنا يا بينا واحد سيدانا وبيو كو يهودي وقاضي هوري لهي عيبي بحال عيبي أصفار بيسيدان محي سيدي حمار بالي ضمير كتب سيدة أيها الأولى كما قد السنين هي قالوا عيبي ويحل أن هلكو يالا لكن والله يا وين كبرك يسرنا هلك هينو سيالو وحنا كلنا اسكا ولا قن هدينو قفني هدينو قيسني هدينو قبيلني هدينو قرن هيبا دي waxay gaaladu raaci dad tirado oo adigii muslimkii rumaysan hadaad raaci weyday ma qof kala trajeynaysa inuu ku dhaqmo aday haydanad gurig saamul noqoto oo binaadamku kugu daydo oo arko binaadamku waa ku garaadle haduu jiri lahaa system si dhaba ugu dhaqmaya dadku way arki lahayd benefitka ku jira laakiin haddaan dadkuba ku dhaqmaynin ee baraka loo haysto waa dagaalamayna haddii wax laga sheego saaka ma muslimiinta oo dhan waa kacayaan qur-aankiiba wax ka sheegay qur-aanka waa dad ku dhaqmi weyda adiga wax sheegaaga ka war daynan qur-aan ba uu dhankiisa u jeedin idan waxaan leenahay kitaabka kani wuxuu u baahan yahay inaynu rafkan ka qaadno rufuuftanu saaray intaynu ka qaadno inaynu baranno oo akhrino wixii dani kaa gasho waa la gartaa reebana tiraab haya afcarabu ku qorayo lama yaqaano imise afaan hooyada ayaa aabahatoona kuu dhigmad baratay oo hungurigu kaa gala wax walba wixii hungurigu gala waa baranaa sawaaxilaa barateen ingiriisaa barateen kabaa barateen waayo dantaadii baa gashay bale maanta haddaad shirkad la xidhiidho oo ay kuu soo dirto waraaqihii shirkadu af jarmal ku qoran legal translation baad raadinaysaa si aad u hesho sharciga marka la soo translate garay haddana si aad gunteeda u fahamto ayaad lawyer u tagaysaa leedahay bal hadda baashaan akhri adigoo af ingiriisiga garanaya waxa ku qoran baad waxaad raadinaysaa bal meel lagaa qaldi kara inay ku jirto iyo wax kale si aad isaga hubiso contractgan shuy qofka biniaadamkii wixii dani ka gasho ugu bartaa af carabiguna waa afafka dunida ugu sahlan uguna qadisan haddaynu u rumaysanay in daliilagaga jirta kitaabka kan waa baran kari lahay saynu u barannaba ma aha inaynu wada khabiir noqonayno khabiirnimadu fanni waliba khabiirkiisa la weydiiyay akhiiran laakiin at least fikradda guud aynu u baahanaynu heli lahay anta markaad dhaqaale wax ka baaci mushtarayso waxaad ka baaci mushtarayso aragtiisida guud waad haysaa waa laga yaabaa kaaga khabaarsan aad masaa'ilka qaarkeed weydiinaysaa inay jirto laakiin waxaasi siduu u shaqeeyo sida loo raadiciyo waad guriga sidiina nisbad ku leedo waad soo haysaa idan kitaabka kani inuu daboolmaado masaajidda yaallo oo keena ugu fiican inuu jimco akhriyo ama uu waxoogaa wardiya ka samaysto oo uu yidhaahdo qur-aanka maalintii anigu jis baan akhriyaa dee jis aanad fahmin baad akhridaa jis rabbi kula hadlayo oo waxa lagu sheegayana aanad garanayno rabbu samaawaat baa kula hadlaya haddana ma garanaysid ilaahay wixii uu kuu sheegayay gartay sanad laba saddex inay saas kugu dhacdo ka warran nin weligiiba akhrinayay oon haddana garanaynin nin weligiiba akhrinayay oon haddana garanaynin waa gharaa'ibta muslimiinta المسلمين كم يدعوا لها كتاب كدوني ده لوجو أخرس كبدأ يبيعوا القرآن وأيو دوني ده يمسكوا فوق مسلمات كذا وفاتحون أخريا ويران وضرب الناس أخيرا ما قالوا والله أخريا وحين هذا وبوق اللوجو أخرس كبدأ لكن وحين ذكرنا مرة بعدنا وبوق اللوجو فهم دري وقدت كل ما آخرنا يا عيران قررين وحكوا قرن تتقوى آخرنا يا وحكوا قرنا لما قررين هلين هدين الرميسنا إنه يهي منهج حياة وحين نولشنا قصة حرحين أديكو قف كلي أبا نولش هذا قصة حنايا أديكو قيس أبا قصة حيسا هذا قبيلة قصة حيسا هذا قرنات قصة حيسا إذا وحين نوبهنا إنه سفيع الفهم ولبا
إن الأخرية في عنت أي لا القرآن كوحكو لي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من هذا نبور كسود جن لهيدو يفهمته وكلا دادا لهيد باي لهي هذا الله يوحك ورمى يوم كيف فهمت ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا القرآن كان لو قلت لك قال لي هذا لا بورا لو تكسيه أما دولك لو جويو أما ميت كلو الله الله الدين لو قلت لك قال لها لكان وأهان لها لكن قلوب البني آدم كأنك حودي ومع ذلك عدة لغة أخرية تأثير بكو سمية هي عدة أخرية سوا ولذلك بقى أحمد القاضي بروفيسور كيلو ريتشري مسلم كان يتاي إن خبير مسلم هو إن ودنا ذا مريكا كده جنان شري وها نختار كوان بدلا ودناها يسمى بدي يتان مركي وبنشن كقالي ونختار ما دي شو شيء أيوة نختار كي هو هنا وكشغين ويأكتي سوحه كفرطي مال وتجارب كسمية وحكو دوية لكن بشرط ذاتك اللو كينيا وينو النغضاء عدي أي نختار كقوستين عشان نختار كوين كوحيقا عدي لغا قوستو هذا كسر بعض غرطة بالبعض مولاني سادي كم بعض غرطة مركا عدي يلاهدان وإن لسكيجي مالها ضدكو كوبحنانين ينتو لمن يويل هذا حقو سوريتشيه كواسا الله كان كواسو تجابين كو قاضي وحبة السوداء قرآن يكن آخرين كوا مركو قرآن كو آخرين تجاربتك كو قادين دمان تدور رادي حتى كوا أن ملك فهمين بكو آخرين قار مسلم بكو آخرين قار قالا بكو آخرين قال أن أفعربي أقوم بكو آخرين حتى مركي دمو حدا ورملا وقاب كان لوغو غنيني وقاب كان لوغو هيسي قرآن كي أفعربي بيكينا قبيو صاروا قرآن لوغو هيسي ولا تجويدين أسئلة كو آخرية بل تجربة سين وياجنا إنجليزي لغو هسه يكو آخرية بل أفكستا ما هسكستا وقف كان لغو آخرين راتكو سمين كانوا قرآنكو راتكو سميه وحسبيه مجران إلا وقرآن لندن كسميه وبحوثة وحن ودن ليه هاي ياس قرآنكو رات بوليه تأثير بوليه لكن واحد نبتع إنه ربنا معها إنه أجر وأخرسنا أجر بدن بولي أخرس كيسو الصحوية حرف كستا طبعا أجر بولي ما إنه للتبرك إنه كبر كيسنا شياطين تسكيجير إنه كأنه تشينكو دردرة تشينكا كجسر رو إنت أصلا إنه آخر إنه لكن وحول مهم سري وحوية للاهتداء ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والاهتداء هدى ورحمة للمؤمنين للمسلمين لا إله إلا الله ورنين كهنونه أيها الأحبة عم كسو كوبيا آيات القرآن إلهي لي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تتكبر بالقرآن كأنت ويني بويني دي وحي كلكتي وحن لفهم إنه يهاي وكله مركب وحول البصور ما يسال القرآن كالآخرية إلهي نوحك ليه ولقد يسرنا القرآن للذكر والقرآن كوان أفديدي إن لقوان توبه فهل من مدكر با إلهي وهو أن توبه يمليدي القرآن كان هو so simple هذا دخل إنك توجيهياتكو أتكوهنونتي فهل من مدكر أتكوهنوني سمليدي أيها الأحبة وقت الصلاة دي قاعد شخر ورغب بحيا حنقول لي وكتاب كالقرآن كأين دحيا له وإلهي كلام كيسي ومعجزتي الدين تتنعدين سينا سحتهاي ومنهج كين نولولات إلا ينقول تلقلين إنه آخرية أدوم بكل بانو صدح دواء سقاء وأنا كارفك صارا ميل والبين ويالا وأنا كفايدي كرنا هدين كل نقنه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم I think the third point that he talked about, the Shaykh Hafidahullah, was the point of the Quran being a miracle. He said at this point we need to understand what the message of the Quran is. And you have to understand this book
again, is a manual of your life, is a manual of your daily life. It's a book that is allowing you to, or is giving you the opportunity to work with. It's showing you how to work, how to live, how to deal with your life. And Allah subhanahu wa ta'ala explained everything in this Quran. When Allah subhanahu wa ta'ala said, and indeed we have revealed to you a book that clarifies everything. He said life is two parts. We do two things. And one of them, the first one, is indeed we do not introduce anything in life, rather we search so we can understand. We search so we can understand how things work. We search so we utilize what is available for us, whether that thing will make the time or the period shorter or more convenient. The Shaykh Hafidahullah, he said this Quran is guiding you to everything that would benefit you. Everything that you need in life, this book is the one that will lead you bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala. And he said Allah subhanahu wa ta'ala indeed had honored all mankind and allowed them to use their experience, their ability. He's saying that this book is telling you, you don't need to experiment. You don't need to look around. Everything that you need is right in front of you. This book came to guide you and to give you the best advice that is available. This book is the book that will teach you what you need in your life in terms of aqeedah, in terms of the legal that is available, in terms of the sharia, in terms of everything that you will require in life. He said, he talked about the DSL book. He said life with the people's, experimenting on people, experimenting in systems and so on. He said things that are used considered to be illness today, it's considered to be right. He said in 1972, some of the things that today considered to be extreme right or human rights, it used to be considered mental illness or disease. He said there was a time, I did not write the dates. He said there was a time that alcohol in America was illegal, but today is illegal. He says system, ideologies, society, social system change, but the laws of Allah will never change. He said the Quran talks about history also, summarize history. And the Quran tells us those who would succeed and those who fell, those who were right and those who were wrong. And the purpose of this summary of history is for you to know the path of success so you can seek, and for you to know the path of failure so you can avoid. He said this book of Allah talks about social system, justice system. It talks about everything in life. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala said, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ. He said travel on land and learn, reflect. Learn from the experience and the history for those before you. He said the Quran talks about everything that benefits you.
Why? Because the one who revealed the Quran is the one who knows what is hidden and what is exposed or openly or plainly open. The Quran came from the one that knows what you're concealing and what you're exposing. He said this Quran is indeed a methodology to live by, is a system to live by. And as a Muslims, we have to go back. We have to learn, we have to understand. He said, we have this Quran, he said the likeness of what we have in the deen of Allah, the book of Allah, and us, is the likeness of someone who is carrying water, yet he's extremely thirsty. He's carrying water on his back, but he's thirsty. He said, and Allah talked about people like that. When Allah subhanahu wa ta'ala described them, donkeys were carrying books of knowledge. The Shaykh continues saying, this book has solution for everything in your life. Has everything solution for everything in our life. The book is talking about how to manage our daily lives, how to manage everything. He said, in this Quran we read for blessings. We go through the page of the Quran, we read for blessings. And which is good, but yet we don't take the time to learn the language of the Quran and try to understand. He said today, if you have something important that pertains to your daily life that is written in a foreign language, you will do your ultimate best to learn and understand that. He said, we learned in many languages that is not obligatory or mandatory on us because it benefits in our worldly life, in our estimation. He said, today if you have even though if you speak the language of a matter that interests you, such as you have a situation, you have a contract, he said, even though the contract is written in the language that you know, you will go and find someone else, such as a lawyer, to explain it more so you will not miss anything from understanding that message. He said, Hafidhahullah, and if we really need to understand the book of Allah the way we should understand, then we must learn the language of the Quran. We should not only use the Quran for barakah, but we should use it as a manual of our life. He said this book, somebody said this book is the book that is most read, but yet is the book that is least understood. That's a serious statement. The book that is most read, yet least understood. So we read the book of Allah, he said, yet we don't understand the message of the book. Therefore, he said, it is upon us to understand the Quran, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, understanding that is sufficient for us to use it as a manual of our life. He said there was a doctor by the name Ahmad Al-Qadi. He was a heart surgeon, a retired heart surgeon. When he retired from his profession, he decided to open a clinic next door to the hospital. And he was treating people whom the medical society gave up on them. And he was treating them only with the Quran and the things that is from the Sunnah, such as black seeds and so on. He said when he was reciting the Quran on these people that lost hope, he said that affected them and improved their life, their health. And then they said, perhaps what affecting these people is not the Quran itself, but it's the tone and the singing that he's using, the melody that he's using. So they recited something with the same melody of which is a poet, Arabic poems and so on, and that the poem did not have similar effect that the Quran had.
He said, my dear brothers, the most important goals of this Quran is guidance. The purpose of the Quran is for it to guide us to Allah subhanahu wa ta'ala. In conclusion, he said, Allah has stated this Quran, in the Quran, that this Quran is easy to remember and to be memorized. Allah said, indeed we made this Quran easy to remember. Is there anyone who will remember it? He said, Hafidahullah, this book, which is the book of Allah subhanahu wa ta'ala, some of us will memorize it, but we do not understand. He said, this book, in conclusion, is a clear guidance once again for all of us that this deen is the religion of truth. It's the religion of truth. And all of us, we should follow it to the best of our ability and learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, in conclusion, I have someone who will be translating after me, and the time for salah is being called, and this is the end of my session. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our Shaykh. He indeed enlightened us concerning the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him with Al-Firdaus Al-A'la, and to bless him and his offspring, those who are with us and those who are away. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our Shaykh with a long life, so he can keep showering us with his presence. We can still benefit from our Shaykh.